madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu safar degdeg ah ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa uu safarkiisa saddexaad tan iyo markii la doortay maanta oo Khamiisa ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta. Safarkan oo horey aan loo sii shaacin ayaa waxaa qayb ka ah golaha wasiirada maamulka Somaliland iyo xubno ka socda madaxtooyada maamulkaasi. madaxtooyada maamulka Somaliland weli ma aysan shaacin safarka madaxweynaha maamulka Somaliland, sidoo kalena ma aysan faahfaahin ujeedka madaxweynaha maamulka Somaliland ugu ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta. 6 safar oo dibadda ah ayuu u dhoofay tan iyo markii la doortay madaxweyne Muuse Biixi, waxaana 3 ka mid ah ugu ambabaxay dalkaasi Imaaraadka Carabta. xiriirka maamulka Somaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa bilihii u dambeeyay wanaagsanaa tan iyo markii Imaaraadka Carabta lagu wareejiyay dekedda magaalada Berbera ee Somaliland, waxaana safarkan kii ka horeeyay Imaaraadka Carabta si uu aad loogu soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Somaliland.